الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya oo saaxiibadaya oo garbahayga ah gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe saraakiisha culumadiinka nabadoonyada dhalinyarada ururka haweenka iyo bada saxaafadda dhammaan cid walba magaca iyo mansabka iyo mas'uuliyadda ay meesha ku fadhida ayaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Salaam bacdigeed horta alxamdulillah horta marka ugu horreysay ilaaha ma hadda iskale maanta waad ii jeediin anoo tuuta lahan ka soo muuqa jiray maalmahan meediyaha maanta waad ii jeediin anigoo dhan isboortii wadan ka soo muuqda waa guul ilaahay keenay sababtoo ay deegaan doorashooyinka aan ka soo jeedo caawa halaana jiifa karno qawaariij joogto ma jiro ilaahana iskale mahadaas iyo dadaal uu la sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu baaqay in la diro qawaariijta cid walbana mas'uuliyadda iyo deegaan doorashadeeda ay u dhabar adeegto ay dadkeedana baraarujiso kana saarto cadawga ku soo duulay diinta islaamka iyo dadnimada go'aankaas ayaan qaadanay marka alxamdulillah ilaaha mahad iskale anu caawa manaan intay waa faraxsanaa sababtoo guushaasaan gaar caawa deegaan doorashooyinka aan ka soo jeedin waa xur halaana jiifa kar male alxamdulillah waxaan u mahad celinaa dhalinyarada macaawisleyda oo dadaashay ee isxilqaamtay ee iigu yeertay iyagoo deegaankana xur yahay difaacooduna adag yahay iyaguna way ku mahadsan yihiin intaas haddii aan ka gudbo waxaan rajay doonaa insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo baahida aad qabtiin dhan kastay tahay in anigoo kaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya midda isteedka intaba in insha Allah aan ku dadaali doono si wax walbood u baahan tihiin aan ku iskaashanayna aniguna idin ahay afayaan in aan idinka caawinaa ayaan ku dadaali doonaa insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo intaasu haddii aan ka gudbo waxaan idin leeyahay dhalinyarada qoryaheeda la soo baxday ee nafteeda iyo maalkeeda u soo istaagtay inay ku caawiso dawladda awaamiirta amba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka hadalkii go'aanka uu soo saaro baaqiisi qaadatayna way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan idin sheegayaa ehelana horta qaraabaan nahay waa idin jeedaa waa mahadsantihiin waa fiicantihiin laakiin waxaan dareensanahay marka waxaan idin sheegayaa caawa wixii ka dambeeye lama dawlad dalka kama jirto wixii ka jira qor haysta waa shabaab iyo dawladda caawa wixii ka dambeeye qoriga guri ku jira leeyahay shabaabaa ku dilaya hadhow amba shabaabaa ku dhaafay horta cid shabaab ku dhaafay hadda ka baad idinka mid maaha cid walba gabar ha noqoto odo ha noqoto wiil ha noqoto mid qorasid ha noqoto cadawgiina wada waaya qawaariijtu waxaan idin leeyahay qoryaha la soo saaro qoriga aan la soo saarina asoo maqlaaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe dawladdu la wareegi doontaa anigana dawladda ma soo sheegi kara sababtoo ah qora shabaab waaye ma aha qora oo ay leedahay oo dawladda la garab istaagsan yahay mana aqbalayno qora dawladda oo dhabta faygeeda ku jira cabsi maanta ka baad ma la aqbalayo waa cabsi saana ahayd maya naftaan ilaahay baa gooyay marana la dhintaa waxaan soo jeedinayaa oon baaq dheer ku soo jeedinayaa in la soo saaro qoryaha ay la mid noqdaan kuwaan la soo saaray cadawna hal noqdo marka ninkii ay dhib ku tahay inuu soo bixiyo caawa go'aankaas aan soo saaray meesha maamul ay leedahay dawladda ay leedahay isteed waaye waxaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe ay hor istaagsan oo maqlaa anigana beriga maalin waa haddaan sheego layma lahaad u sheegi qoriga guri ku jira qor walba uu la og yahay waa qoran yahay caawa wixii ka dambeeyo waxaan ka sugaa taliyaha macaawisleeya iyo sargaalka beesha inay soo gudbiyaan hadday soo gudbiyaanna dawladdu soo qaadato amba shabaab ha la aado hadda ha noqdo cadawgaan la dirirayno amba ha noqdo kan cadawga lagu difaacayo cadawgiisa difaacayno intaasuna waa baaq aan u diraayo dadka xoogaa la gagabanayay anku sideeda dhan go'aanaan gaarnay amar waxaan qaadanay amba go'aan uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in qawaariijta lala diriro
naftaan iyo maalkaa inaan u hurno xaq ma aha in 10 iyo dhowr casho qoryaha inta rag la soo baxay difaac ku jiraan gobolna la yiraahdo taleefana la soo diray war nin taleefon diray ha ka baqina halka idin la joogi haddaadan ka baqayna ilaahay ka baqo horta sidaa dhan bini aadam ha ka baqina laakiin xaq darro wixii idinku ma raacsanin wixii xaqan idinku raacsanna midda kale qoryaha waa la soo baxshay ha la soo bixiyeen nidaam iyo sharci u rabaa horta ninkii nin dile go'aanka waad maqlaysiin kama dhigayariin dadka waa la saxiixay maanta ka baad ninku nin hadduu dilo amba walaalkii ha noqdo amba diriskiisa ha noqdo amba ehelka ha noqdo amba islaan ha noqdo ninkii nin dile waa la dilaa qof haba yaraatee faraqa gashayse diya laga dhiibaayo ma jiro waxaa loo baahan yahay qoragaas naftaada iyo maalkaada inaad ku ilaashato ninka haddii aad disho lagu haysto shabaabka kuma jiro kaasina shabaabka ha dilina xildhibaankii yaa yidhi ninkii la dilo waa la dilaa shabaabka ha dilaysiin waa soo qabaysiin meeshuu joogaad ugu tegaysiin laakiin ninkaan la dilayn waa halka walaalkaa waa halka garabkaada waa halka kaas ma la dili karo aad iyo aad aad u mahadsantihiin waktigii oo gaaban waxaan idin leeyahay aniga caawa ii jeediin oo isboorti lahaan idin dhex rogaa waa nabadaan qaatay waaye waa banooniyan ciyaar rabaa markii aan joogay nuur dugle tuutaan ku jira habeenkii iyo kobabuud asaan la seexaay mahanaa lagu yimid haddii la yidhaha qorigaan soo qabtay ana qorigaygan watay marka alxamdulilah maanta aniga farxaday ii tahay mar koobaad iyo mar labaad dadaalka iyo dhiirigelinta uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sameeyey iyo qaadashadaan qaadanay iyo guusha aan helnay dagaal haddii la galay hadda waa dhimanaa intii dhimatana allahu naxariistaan leho intaan ku jirna jihaadka dhimatay waa jihaad inta dhaawacantana allah bogsiyaan leenahay soo dhowaada waxaa la rabaa 100% dad ismaqle ehela qaraabaa cadowna hal isu yahay in la noqdo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan ku soo dhoweeyaa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe